dalka ugu yar dunida isla markaana ay ku nool yihiin dadka ugu tirada yar. Dalkaasi waa mid ku dhex yaala waddan kale, gaar ahaan caasimadiisa. Waa dal ay ku nool yihiin ama dadka ku dhaqan lagu qiyaaso waxaan 1000 qof ka badnayn. Waa dal jira oo leh caasimad, madaxweyne, maamul, kala dambeyn, wasiirro, dowlad, diblomaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee ay xukuumaddu ka kooban tahay. Waxa uu leeyahay xuduudo, haddana waxa uu ka tirsan yahay Qaramada Midoobay oo dunida oo dhan ayaa aqoonsan. Dalka aynu ka hadlayno ee aynu socdaalkeena ku soo qaadanaynaa waa dalka loo yaqaano Vatican ama maamulka loogu yeero Vaticanka. Waa maamul diimeed boqortooyo ah, haddana nidaam xukun oo casri ah leh. Vatican waxa ay ku taallaa bartamaha magaalada Roma ee dalka Talyaaniga caasimadiisa. Waa dhul aan ka badnayn xaafad ku taalla Hargeysa, haddana dunida looga aqoonsan yahay dowlad jirta oo leh calankeeda, maamulkeeda, madaxdeeda iyo nidaamkeeda sharci. Waa dowlad aan lagu soo xadgudbi karin xuduudaheeda oo ka tirsan Qaramada Midoobay. Waa dowlad siday doonto u maamulata dhaqaalaheeda iyo hawlaheeda kala gedisan. Marka laga yimaado buqcadda kooban ee ay ku fadhido, waxaa aaminsan oo dowladnimadeeda u ictiraafsan dhammaan dunida oo dhan. Waxa kale oo ku xidhan oo caqiide ahaan u aaminsan dad ka badan 1 bilyan oo qof oo ah dadka Kaatoliga ah ee aaminsan diinta Kiristaanka. Haddaba intaynu ku guda jirno barnaamijkeena waxaynu daawadayaal waxyaabo badan kaga ogaan doonaa taariikhdii iyo sidii ay ku dhisantay Vatican iyo halka ay ka soo jeedo. Waxa kale oo aynu ku darsi doonaa meelaha dhaqaaluhu ka soo galo, sababta ay dowlad ku noqotay, xiriirka ay la leedahay dunida muslimka iyo wadamada kale ee caalamka, madaxweynayaasha booqda, sida ay u aqoonsato dowladaha dunida iyo sida iyada lafteeda loo ictiraafay, wakhtigii ay dhisantay, inta boqortooyo ama boob ee soo martay. Taariikhdaas oo aynu si ballaaran ugu darsi doono inta aynu ku guda jirno barnaamijkeena. Luqadda rasmiga ah ee dowladda Vaticanku waa afka Laatiiniga, haddana afka ugu badan ee lagaga hadlaa waa Talyaaniga, oo Laatiiniga waxaa lagu sameeyaa oo keliya ama lagaga khudbadeeyaa munaasabadaha diiniga ah marka la qabanayo. Vatican waxaa lagu tilmaamaa dowladda ugu yar dunida. Masaafada dhuleed ee ay ku fadhidaana waa waxaan ka badnayn 3 kiiloomitir oo isku wareeg ah. Bartamaha magaalada Romana way ku taallaa, haddana waxa ay leedahay madaxweyne, wasiirro, ciidamo, xuduudo, diblomaasiyiin iyo dhammaan waxyaabaha dowlad walba leedahay. Bartamaha dowlad xaafadeedkan aadka u yar waxaa ku yaala qasriga San Boutros oo ah astaanta. Waxaa ka dul dhisan qasriga Vaticanka looga taliyo oo ka kooban ilaa 1000 qol oo isugu jira xafiisyada, wasaaradaha, laamaha kala duwan ee dowladnimo iyo madxafyo taariikhi ah. Muddo 1000 sannadood laga joogo wakhti ku beegan oo ahayd qarnigii 4 ee miilaadiga, waxaa dowladdii Baabilooniyiintu ama boobku isku ballaarisay qaybaha uu ka kooban yahay dalka Talyaanigu ilaa ay ku guulaysatay in Italy oo dhan ay wada xukumaan. Xilligaasi waxay ku beegantay xilligii kacdoonkii ugu ballaadhnaa ee isbeddelka ahaa ka samaysmay qaaradda Yurub. Waxaa xilligaasi kala jabay kaniisadda Kiristaanka oo waxaa bilaabmay madhabta loo yaqaano Protestanka. Waxa kale oo wakhtigaasi kaniisadda ka baxay boqorradii Kiristaanka ee ka tali jiray dhulkaasi. Kacaankii Faransiiska iyo dagaaladii kala duwanaa ee Yurub ka dhacay waxa ay sababeen in marba marka ka dambaysa ay soo koobanto khariidadda ay dowladdii Baabilooniyiintu ku fadhiday ilaa ay ku soo ururtay qaybaha yar ee imika ay ka kooban tahay ama ay ku taallo dhulka loo yaqaano Vatican oo ah bartamaha magaalada Roma. Ereyga Bob waa kelmad Laatiini ah oo macnaheedu yahay aabbo ama qofka ugu sarreeya dadka diinta ka shaqeeya. Sida kaniisaddu u adeegsatana waa qof aan dembi lahayn oo ka wakiil ah Ciise Masiix ama Nebi Ciise. Sidoo kale waa khaliifka Qadiis Butros oo ahaa midkii ugu horreeyay ee aasaasay dowladda Roman Catholic
waxaana marka la isku soo ururiyo ay kelmadani noqonaysaa wakiilka ciise ee dhulka. boobku waa qofka ugu sarreeya ee dowladda Vaticanka. waxa xilkaa marka qofka loo doorto uu ka haynaya ilaa uu ka dhimanayo ama isagu ka tanaasulayo. isagaa leh maamulka, jaangoynta, dhaqaalaha iyo kala nidaaminta. dadka kale oo dhammina waxa ay u yihiin kalkaaliyayaal. tan iyo intii ay dhalatay ama la aasaasay dowladda Vaticanku waxa xukunka iska dhaxlay ilaa 157 baadari, waxaana sida taariikhda lagu hayo uu ahaa kii ugu horreeyey San Botres oo Vaticanku ku doodaan inuu ka mid ahaa xawaariyiintii nebi ciise taabacday ama la joogtay. ninkaas oo la sheego inuu kasoo kicitimay bariga dhexe gaar ahaan Falastiin oo uu tegay Rooma, halkaas oo uu ku noolaa ilaa laga dilayay sanadkii 69 ee miilaadiga. baadeeryadii soo kala dhaxlay jagadaas ayaa kala duwanaa marka la eego dhinaca awoodahooda, taariikhda ay ka tageen iyo dadaaladii ay sameeyeen, waxaanay badankoodu ka soo jeedeen dalka Talyaaniga iyo dhulka uu ku yaalo. kaniisadda Vaticanka iyo maamulkeeda ayaa si weyn u soo noolaaday intii lagu jiray wakhtigan casriga ah markii uu hoggaanka u qabtay Karol Joseph oo dhalashadiisu ka soo jeeday dalka Poland, kaas oo loo bixiyey John Paulka II oo la doortay 16 Oktoobar 1978 xilkana hayay in ka badan 36 sannadood. baadariga John Paulkii II waxa uu kaniisadda u yeelay sumcad ballaaran. waxa uu xidhiir fiican la sameeyey diimaha samaawiga ah sida muslimiinta iyo yuhuudda. waxa kale oo uu ku dadaalay isku soo dhoweynta diimaha, isaga oo ka shaqeeyey in nabadgelyo lagu soo dabaalo colaadaha ka taagnaa dunida. runtii waxa uu baadarigaas ahaa mid lagu tilmaami jiray raggii ugu wanaagsanaa ee soo mara talada kaniisadda Katoliga, isla markaana dhisay Vaticanka xidhiir fiican inay la yeelato dunida. waxa bedelay Joseph Ratzinger oo loo bixiyey markii la doortay Pope Benedictka 16aad, kaas oo la doortay sanadkii 2005, waxaanu xilka iska casilay isla sanadkan aynu ku jirno bishii 3aad, waqtigaas oo la doortay Pope Francisco. maaha oo keliya waxa ugu la yaabka badan ee Vaticanku inay tahay yaraanteeda ay tahay dowladda ugu yar dunida, hase yeeshee waxa ay ka mid tahay oo ay tahayba ta ugu dhaqaalaha badan adduunka marka laga qiyaas qaato dhaqaalaha soo gala iyo kharashka ka baxa iyo tirada dadka rasmiyan Vaticanka u ah. sida xogaha dhaqaalaha u soo xidhiidhay dowladda Vaticanka lagu qiyaasay, waxaa sanadkii soo gala in ka badan 3 bilyan oo euro, kaas oo ka soo gasha dalxiiska, tabarucaadka ay siiyaan dadka aaminsan iyo dowlado si gaar ah u gargaara. kharashka ugu badan ee dowladda Vaticanku isticmaasho ayaa ku baxa ilaa 3 arrimood oo kala ah faafinta diinta Kiristaanka ee dunida oo loo xadido lacago ay ku hawlgalaan baadariyada iyo dadka fidinaya diinta Kiristaanka, mushaharada kaardinaalada oo ah baadariyada sarsare, iyo dib u habaynta kaniisadaha iyo dhismayaasha diiniga ah. Talyaanigu waa waddanka ay ku dhex taallo dowladda dunida looga aqoonsan yahay Vaticanka, hase yeeshee waxaa jira muran u dhexeeya Talyaaniga iyo Vaticanka oo la xidhiidha Vaticanka iyo Talyaaniga midka ka dhex samaysmay dhulkaas. si kastaba ha ahaatee, Talyaanigu waa dowlad Calmaani ah oo aan diinta ku dhaqmin, sidoo kale waa dal aan dadka ku dhaqa badankiisu Katolig ahayn sida dalalka Spain iyo Faransiiska oo kale. haddana waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyey ee ugu hor aqoonsaday dowladda Vaticanka. inkasta oo dadka Talyaanigu ay istiidsiiyaan in kaniisadda Katoligu raad iyo saameyn ku leedahay nidaamkooda dowladnimo,
haddana waa mid muuqda oo qof kasta oo hogaamiye ama madax ka noqda dalkaasi talada iyo hogaanka ma qaban karo ilaa uu kasoo barakaysto boobka ugu sarreeya kiniisadda Roman Catholic ee Vaticanka. labada dhinac ayaa dunida u sheegay in xuduudo iyo xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo midna midka kale aanu ku faragelin siyaasadihiisa iyo arrimaha gudaha. Vatican oo ah dowladda ugu yar dunida haddana ku dhex taalla caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma kama tirsana midowga Yurub ee ay qaaradiisa ku dhex taallo mana fuliso sharciyada iyo siyaasadaha midowga Yurub ku dhaqmaan. Kuwa qaramada midoobay iyo kuwa urur goboleedyadana midna kuma dhaqanto. tusaale ahaan madaxda iyo wadamada ay xiriirka la leedahay waxa ay soo booqan karaan ama booqan kara baadariga iyagoo xitaa safar ku iman kara gudaha Talyaaniga ee Vaticanka ku taalo iyaga oo safar ahaan mamnuuc ka ah inay soo galaan wadamada Yurub. dhinaca diblomaasiyadda waxa ay ku dhaqmaan sida dowladda oo kale haddana qaab diini ah lagu laray. waxaa dalalka xiriirku u dhaxeeyo ay ka furtaan safaarado halka iyaguna ay ka siiyaan safaarado iyo marti diblomaasiyadeed. xiriirka diblomaasiyadeed kuma xidhna diinta iyo caqiidada oo waxa ay xiriir la leeyihiin dalal aan Kiristaan ahayn oo Muslim qaarkood yihiin ama Afrikaan iyo Indhayar isugu jira intaba. waxa booqda madax kala duwan oo aan diin ahaan Kiristaan aaminsanayn laakiin xiriir diblomaasiyadeed la leh iyo kuwa si gaar ah ay u marti qaadaan. madaxweynayaasha Mareykanka ayaa iyaguna si joogto ah u booqda Vatican iyo kuwa si gaar ah ay u marti qaadaan sida madaxda Islaamka oo kale oo ay ka mid ahaayeen boqorka Sacuudi Arabiya, boqorka Bahrayn iyo qaar kale badan. haddaba haddii nidaamka maamul ee Vaticanka looga aqoonsan yahay dunidu yahay mid ku shaqeeya hab diimeed waxa hubaal ah in aanay isfahan badan yeelan karin diimaha kale gaar ahaan kuwa dhinaca Alle ka yimiday ee sida diinta Islaamka oo kale. tusaale ahaan halkii ku dhashay Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam ahna meesha Vaticanku ku doodaan inuu ka yimid ninkii aasaasay dowladda baabaha ee St. Petrus maaha mid si caqiide ahaan ah ku dhisan ay uga warhayaan. bal aynu wax yar ka eegno xiriirka u dhaxeeya Vaticanka ama kaniisadda Katoliga iyo Bariga Dhexe oo ah bugcadda ay diimuhu ka soo farcameen gaar ahaan meesha muranka weyni ka taagan yahay ee magaalada barakaysan ee Qudus oo ah ta ay isku hayaan diimaha samaawiga. xiriirka u dhaxeeya Vaticanka iyo Bariga Dhexe ayaa lagu tilmaamaa ka ugu hooseeya ee ugu liita. sababaha xumeeyay xiriirkaasi oo waxyaabo badan loo tiriyo waxa ay u kala saari karnaa mid siyaasadeed iyo mid caqiidadeed. haddii aynu xagga diinta ku horeyno Kiristaanka ku nool Bariga Dhexe saameyn intee leeg ayay ku leedahay kaniisaddu. waxaa Bariga Dhexe ku nool dad ka badan ilaa iyo 18 milyan oo Kiristaan ah kuwaas oo la nool in ka badan 210 milyan oo Muslimiin ah. hase yeeshee waxaa xusid mudan in boqolkiiba 15 keliya oo ka midii ay aaminsan yihiin kaniisadda ama ku xidhan yihiin kaniisadda Katoliga ee Vaticanku maamulo. kaniisadaha ay badankoodu taabacsan yihiin ayaa ah kaniisadaha Ortodokska ee bariga iyo galbeedka gaar ahaan bariga ee xarunteedu yahay dalka Ruushka oo ay aaminsan yihiin dadka Qibdiyiinta Masar ee ugu badan Kiristaanka ku nool Bariga Dhexe. waxaa jira dad kale oo Kiristaan ah oo aan iyagu midnaba aaminsanayn kaniisadaha kuna dooda inay haystaan kitaabkii Injiilka ahaa ee xaqa ahaa wuxuuna aanu ahayn nidaam maamul ee yahay mid diineed kaniisad walbana ay ku cibaadaysan karaan. tirada ugu badan ee Katoliga ahi waxa ay Bariga Dhexe ka nooshahay wadamada Ciraaq iyo Libnaan kuwaas oo ku xidhan kaniisadda Maaroniga loo yaqaano. sida muuqata waxa ay xaaladahan oo dhami caddaynayaan in madhabaha kala duwan ee diinta Kiristaanku
ay yihiin kuwo isaga xun oo xafiiltanka iyo dhibaatada ka dhex taagan ay ka daran tahay kuwa u dhaxaysa diimaha kale. Sanadkii 1962 kaniisadda Katoliga ee Vaticanku waxa ay soo saartay go'aan ay ku sheegayso in masiixi kasta oo aan kaniisadda Roman Catholic ku xidhnayn boobkana aanu aaminsanayn qofka ugu sarreeya yahay mid dhaawac ku dhacay, gaar ahaan kaniisadaha Ortodokska iyo Protestantka. waxa kale oo ay kaniisaddu si weyn u dadaalaysay madhabta Protestantka oo ay ku tilmaantay mid iyada dhaawaceedu fog yahay oo aan la daweyn karin. arrintaasi oo kicisay muran ayaa haddana waxa ay mar kale cirkaas ku sii shareertay markii baadarigii dhawaan xilka iska casilay Benedict XVI uu sanadkii 2000 isaga oo kardinaal ah sheegay in masiixiga dhabta ahi ku xidhan yahay kaniisadda Katoliga, boobkana uu aaminsan yahay qofka ugu sarreeya. arrinta ugu muhiimsan ee sababtay kala fogaanshaha iyo is-aamin la'aanta u dhaxaysa muslimiinta iyo Vaticanka ayaa salka ku haysta kooxaha faafiya diinta Kiristaanka ee loogu yeero tabshiiriyiinta ama Christmas missionaries-ka. inta badan maamulka Vaticanka ayaa u dira dalalka ay ku dhaqan yihiin dadka ugu badan ee muslimiintu kooxaha hawlwadeyno gargaar oo ka socda faafinta diinta Kiristaanka, kuwaas oo loo tababaray sidii ay dadka u gaalaysiin lahaayeen. waxaanay kooxahan oo isku soo matala hay'ado gargaar ay wadamadaasi uga faa'iidaystaan masiibooyinka dabiiciga iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee saaran. sida la wada ogsoon yahay, Vaticanka ayaa goobaha masiibooyinka dabiiciga ay ka dhacaan u soo dira kumayaal hay'adood oo kaniisadahoodu soo maalgeliyaan, kuwaas oo dhulkaas u taga fidinta diinta Kiristaanka, dhex wadana arrimo gargaar iyo mashaariic kale oo ay ku caawiyaan dadka masaakiinta ah. inkastoo ay had iyo jeer Vaticanku beeniyaan, waxa ay ku doodaan in ujeedadoodu aanay ahayn fidinta diinta, balse ay uga dan leeyihiin inay dadka u muujiyaan naxariis, qalbiyadoodana ku soo jiitaan. run ahaantii, tabshiirka ama missionaries-ku waa mid si waaqac ah uga jirta, waana siyaasadda ugu weyn ee Vaticanku u taagan tahay. waxa sida inooga muuqda cajaladan aynu arki karnaa xitaa intaan loo kala dirin wadamada muslimiintu ku badan yihiin in lasii baro kutubta ugu muhiimsan ee diinta Islaamka sida axkaamta, tafsiirka iyo fiqiga. waxaana ku yaala gudaha Vaticanka maktabado ay yaalaan kutubta ugu waaweyn ee diinta Islaamka. marka dadkan loo soo diro wadamada Islaamka ayay ku yimaadaan iyagoo ah hawlwadeenno gargaar oo ka socda cusbitaallo ama meelo caafimaad ama meelo kale oo aadaminimo. dhinaca qadiyadaha siyaasadaha haddii aanu ka eegno magaalada Qudus oo ah iyadoo halka uu ku yaalo masaajidkii laga dheeliyey nabigeena Maxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee, waxa ay xudun u tahay dhammaan khilaafaadyada u dhexeeya dunida, gaar ahaan caqiidooyinka iyo diimaha samaawiga ah. muddada dheer ee 60 sannadood ah ee khilaafku ka taagnaa dhulkaasi waxa soo booqday ilaa 4 baadari oo uu ku jiro baadarigii ugu dambeeyey ee Benedict XVI. dhammaantood waxa ay ka hadleen qadiyadda Falastiin iyo dhibaatada haysata dadka reer Falastiin iyo goobaha diinta Kiristaanka. hase yeeshee may noqon wax ay si weyn u qaadadhigeen. inkastoo waqtiyadii u dambeeyey kaniisadda Katoligu iska dhigto inay dhexdhexaad ka tahay arrinta Qudus kuna taliso in saddexda diimoodba ay ka dhaxayso, haddana waxaa muuqata in si buuxda ay u taageerto dhinaca Israa'iil. sanadkii 1993 ayay ahayd markii ugu horreysay ee Vaticanku aqoonsaday xiriir diblomaasiyadeedna la yeeshay maamulada Falastiin iyo Israa'iil. tan iyo 80-aadkii qarnigii hore waxaa soo kordhayey wadahadallada iyo doodaha dhex mara Islaamka iyo kaniisadda Katoliga. sidoo kale waxaa kor u kacayay xiriirka u dhexeeya culimada Ashar ee ugu sarreysa diinta Islaamka iyo Vaticanka. hase yeeshee xiriirkaasi maaha mid hore iyo dib midna u dhaqaaqi karaya
oo ma muuqato in la isku mari karo xaqiiqada dhabta ah ee jirta. Waxa cad in labada dhinac kaliya uga jeedaan kulamadooda inay ku muujiyaan sidii ay u tusi lahaayeen dadka kala taabacsan labada diimood inay nabadi jirto lana wada hadli karo. Waa kulamo iyada oo la dhoolla cadaynayo la tuso warbaahinta, kelmado la kala taabacaraystana lagu soo bandhigo. Vatican waxa ay samaysay sanadihii 80-aadkii qarnigii hore dabayaaqadiisii wasaarad u gaar ah xiriirka diimaha. Waxaa tan iyo xilligaasi bilaabmay xiriir kala duwan oo dhex maray culimada kala duwan ee dunida iyo kaniisadda Katoliga. Kulamadaas waxaa natiijada kaliya ee ka soo baxday noqotay in la isku afgartay culayska oo laga yareeyo muslimiinta ku nool dalalka kiristaanka Katoliga ahi u badan yihiin iyo kiristaanka la nool dadka muslimiinta oo iyaga laftooda laga yareeyo dhibaatada. Hase yeeshee marka guud ahaan la isku soo wada duubo waxa cad in dadka kala aaminsan labadan diimood ee rumaysan in la wada hadli karaaba ay aad u kooban yihiin. haddii aynu wax yar dib ugu soo noqonno kaniisadda Katoliga ee loo yaqaano maamulka Vatican oo dunida dowlad ahaan looga aqoonsan yahay, waxa aynu daawada isweydiin karnaa marka aynu aragno muuqaaladan iyo habka ay u shaqayso kaniisaddu oo wakhtigan u eg mid siyaasadeed. Miyay ka tagtay kaniisaddu diintii iyo dhaqankii?